shaxda qaruumaha ama wiilashii Nuux waa liis balaaran oo ah askunka faracankii reer Aadam kadib daadkii weynaa ee sida daran u ciqaabay reer Nuux kuwii ugu badnaa ee diiday amarka Rabbiga. askunka faracanka Nuux oo kamid ah bilowga tobanaad ee Bible-ka Cibraaniga ah sida laga soo xigtay kaas oo ka dhigan abtirsiinta ama cilmiga ku saabsan aadamaha kala duwan farqiga iyo xiriirka iyaga u dhaxeeya ayaa aragtidani loogu waramay Levantin xilligii Iron Age-ta. muhiimadda uu Nuux u leeyahay macnaha guud waa in sida uu Bible-ka Cibraaniga ahi bilowgiisa lixaad iyo kitaabka Qur'aanka Kariimka ee Furqaan kadib markii ay amar diido iyo gaaloobid awgeed go'aanka iyo amarada Rabbiga. Nuux oo rasuulkii ugu horeeyay ee xilligaasi noqday ayaa ku habaaray in Eebe subxaanahu wa ta'ala uu hal gaalahay ama caasi ahay dhulka uga tagin dhamaanna uu baabi'iyo isaga oo ku sifeeyay in ay doorin doonaan aadmiga kale ee wanaagsan taas oo micnaheedu ahaa inay doorin kareen intii yareed ee muslimiinta ay raacday rasuulka Alle Nuux alayhi salaam. dadkii dhulka ku noolaa gabi ahaanba waa la baabi'iyay intii lagu gudo jiray daadkii weynaa ee dhul iyo cirba. Eebe subxaanahu wa ta'ala uu amray in ay furaan qasnadahooda biyaha sababtoo ah xumaanta dadka dhulka deganaa xilligaasi oo aad u darnayd 900 sanadood ayuu u gudbinayay fariinta tawxiidka iyo waxyiga Rabbiga. nasiib darrose waa ay diideen. ugu dambeyn halkaas ayaa lagu soo jaangooyay noloshoodii oo waa la laayay dhammaantood ilaa Nabi Nuux naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay iyo reerkiisii qaar kamid ah oo badbaaday. Nuux iyo qoyskiisana waxa ay ahaayeen kuwa kaliya ee badbaaday si ay bini aadmiga ay u sii wataan taranka kaliya kuma aynaan koobnayn aadmiga tarankiisa xitaa waxaa kamid ahaa xayawaanka oo laba looga aruuriyay kaynta ka hor inta aanu daadkii weynaa ku dhufan. sidaasi awgeedna dhammaan bani aadamkii dunida ku noolaa isaga ayay ka soo faracmeen oo ay qaraabo yihiin. fasiraada dhabta ah ee dadka dunida saaran imika ayaa lagu sheegay inay ka soo wada faracmeen wiilasha Nuux oo kala ah Ham, Sham iyo Yaafith iyo xaasaskii ay qabeen. Yaafith oo ah wiilkii dhalay Maajuuj si gaar ah ayaan ku falanqayn doonaa wixii ay taariikhda ka qortay faraca la waayay ee la sugayo inay soo bixi doonaan dhamaadka adduunka taas oo Eebe subxaanahu wa ta'ala calaamad uga dhigay zamanka iyo soo idlaynta dunida iyo dadkeeda. badtamihii qarnigii 19 tani waxa ay dad badani u qaateen xaqiiqo dhab ah waxaana xaqiiqdani qaatay Yahuuda Orthodoxiska iyo Muslimiinta iyo Krishtanka. qaar kale se ayaa u arkay taariikhdani faraca daraasado iyo qoraallo Israa'iili ah. aragtida Bible-ka Cibraaniga caruurta ku taxan ee Yaafith, Sham iyo Ham waxa uu ku tilmaamay inay u dhigmaan qaruumo iyo dadyo taariikhi ah oo kala duwan. wiilashani Nuux inay u dhigmaan 3 jinsiyadood ee adduunka oo dhan kuwaasi oo kala ah Yurub, Sementiga iyo Afrikaanta. qaybaha kale ee sheegashada taariikheed ayaa kala ah Yurubta Aasiya inuu dhalay Yaafithka Yaajuuj iyo Maajuuj dhalay, Sementiga oo lagu sheegay inuu dhalay Sham iyo Afrikaanta oo ay Soomaaliba kamid tahay ayaa lagu sheegay in faracooda uu ku biirsanayo awowgoodii Ham. shaxda ummadaha ayaa u dhigmaysa sidani: Ham waa awowga dadka Afrikaanta ah, Sham waa awowga dadka dhexe ee Sementiga, Yaafith oo ah awowga dadka waqooyiga dunida. magacyada wiilashani waxaa loo malaynayaa in ay la xiriiraan xididada Sementic. Ham waxaa loola jeedaa diiran, Sham waxaa loola jeedaa magac ama caan, barwaaqo iyo wixii la mid ah. Yaafith oo micnaheedu uu yahay furan. imika waxaynu falanqayn kooban ka bixinaynaa faracankii Yaafith ina Nuux alayhi salaam. maqaalka ugu muhiimsan ee imika diiradda aynu saareyno waa Yaafith. goormar ina Yaafith caadi ahaan waxaa lagu aqoonsadaa guurtida Gimiru kaas oo afka qalaad ee Ingiriisiga u qormaysa
Khemiranes ee qoraalada Ashur oo la cadeeyay qiyaastii 720 ee hijriyada Ashkenaz ina Gomer waxaa la mala awaalay in magacani uu ka yimid qoraal qaldan oo Cibraaniga ah oo lagu magac daray Ashkuz iyadoo loo aqriyay Nun for Avv Ashkuz iyo Ishkez waxay ahaayeen magacyo loo isticmaalo Shishianiska waa qabiil reer miyi ah ee ahaa dagaalyahano kuwaas oo ku noolaa Siberia maanta kuwaas oo markii ugu horeysay ka soo muuqday diiwaanka Ashur dhamaadkii qarnigii 8aad ee gobolka Caucasus oo mararka qaarkood qabsaday meelo badan oo Yurub iyo Aasiya ah. Jarmalka waxaa loo yaqaan Ashkenaz waana asalka ereyga Ashkenazka Yahuuda. magacyadani waa qabiilo ku abtirsanaya Gomer ina Yaafith ina Nuux alayhi salaam. Rivat ama sida uu u dhigmayo habka abtirsiinta oo ah Divad aqoonsiga Bathlagonianiska ee waayihii dambe ayaa la soo jeediyay laakiin tani lama hubo. Togarmah oo dhawaaq ahaan iyo qoraalba u shabaha afkanaga hooye ee Soomaaliga isaguna waa qabiil kamid ah Gomerka Yaafith uu dhalay. qaar kamid caadooyinka Armenianiska iyo Georgianiska ayaa qeexay inay ka yimaadeen Togarmaha oo uu dhalay Gomer wiilkii Yaafith ina Nuux alayhi salaam. qoraayaal kale ayaa isku dayay inay isku xiraan iyaga iyo dadyooga kale ee ku nool Turkiga. Maajuuj ina Yaafith magacani waxa uu dhex muuqdaa qoraalada Ashur isaga oo ah Madgugu dhulkii Gugu oo micnaheedu waa Lydia. Gugu qoraalada Gariiga waxaa loogu yaqaanaa Gigis. waxaa lagu sheegaa awoowe ahaan labada dhaqan ee dadka Irishka iyo Hungary labadaba. Flavius Josephus oo ay ku xigaan Jerome iyo Ninius ayaa ka dhigaya awooyaasha Shishianiska ay degan waqooyiga badda madow. barnaamij gaar ah ayaynu ku dulmari doonaa Yaajuuj iyo Maajuuj. Maday ina Yaafith reer Maday ee waqooyi galbeed Iran ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday qoraalada Ashur sida Amadai ama Amadei qiyaastii 844 ee hijriyada. Yaawaan ina Yaafith magacan ayaa la sheegay inuu ku xiran yahay Ionianka oo kamid ah qabiilooyinka Gariiga ee asalka waa kuwan qabiilada uu sii dhalay Yaawaanka dadka Gariiga dhalay. Elisha ina Yaabaan aqoonsi ayaa la soo jeediyay dadyo kala duwan ee Ayogiyanka sida Eliska waqooyi galbeed ee Peloponnesus ama Elistafithia Tarshiishaha oo imika ku taala taariikhda. ina Yaabaan ayaa dhalay si kala duwan ayaa loola xiriiriyay Tarsus ee Anatolia ama Tarsus ee koonfurta Spain. Kitim faracankii Javan caadi ahaan waxa ay ku xiran tahay Kition ee Qobrus laakiin magacu waxa uu ka muuqdaa qoraalo kale ee leh tafsiiro kala duwan. Dodanim ama habka abtirsiinta uu qormayo Rodanim faracankii Javan caadi ahaan waxa ay ku xiran tahay jasiiradda weyn ee Aegean Rhodes ee u dhow xeebta Aasiyada yar. halkan ayaan ku soo gabagabeenayaa la soco qaybta labaad. anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idinana socodsiinayay.